السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم وعد السلامي أحبابي سيئتهين وأن لظنها أنك الحمد لله وأنا صونا بدكعني إلهي نمعديسة إلهي عافي ماد إيو عبادة بهالنوس سيادي إن شاء الله عمري عافي ماد الله كدو إذن كان السيدو كلا أخواتي وحن ساك إنوها يا قراع فضود oo gabdhaha iyo wiilasha anfacaysa caato way ku anfacaysaa inaad iscaateynaysid qofkii raba inuu iscayileena waa anfacaysaa intaba sidii adigu aad isticmaashay mar walba ku xiran tahay marka insha Allah quraacdaas ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo saaka quraacdaas aan rabaa inaan idinka dabageeyo oo aad ka faa'iideysataan waa quraac fudud oo dan dab iyo waxba saaraynin ilmaha iyo u saar laakiin wixii ilmaha u saar ilmaha u saar laakiin adigu waxaa rabaa adigoo aan noqon qof maaragtay buuran oo buurnaan badan ama qof baaba'san aan noqonin inuu weydkaaguna uu yahay caadi oo aadan faadka ka badan la rabaa marka caloosha isa ka fariisan marka kan tan waa isticmaali kartaa ayna waa isticmaali kartaa kan marka cunaysid rabto inaad isku caateysid waa inaad xoogaa hilibka iyo bariiska badan iyo cuntada macnaha faadka aad iska yareysid waaye qofkii raba inuu ku cayilana markuu kan samaysto cuntadiisa caadigiisa uu cuni jiro cunaa markaas adaa miisaan kora qofkii raba inuu miisaanka iska yareeyana waa inuu markuu cuno rooti madow iyo xoogaa cuntooyin sida shiglinka iyo malayga iyo xaggooda inuu xigsado aragtay marka hadda geedkan waxaa la yiraahdaa flaxseed waa kaasa dadka meelaan joogo rootiga lagu daraa korka laga saaraa oo lagu sameeyaa calooshana waa u fiican yahay caafimaadka xaggiisana waa u fiican yahay waa kaas waa ujeedaan walaalahayga qaaliga marka quraacdaas arna inaad samaysto xalay taan qasay biyo yaraan la dhigo waa kuwaas biyahaasaan la dhigay xalayto marka waa inuu kugu jilco ilaa ma karinaysid wixii biyo ma gelinaysid inuu kugu jilco marka waa kaasa biyahaasaan la dhigtay halkaasaan ku shubaa insha Allah halkaasaan ku shubay waxyaalaha kale ku dari doono waa intuusaa halkaasaan ku shubanayaa biyihiisa macaa waa jiidma saas u jiidma fiiri oo kaas waxoogaa wuxuu leeyahay sida baamiyaha camal uu noqonaa markaa biyaha la dhigtid biyo caadi iska dhigay habeenkii markaa seexanaysid subax markaa toostidna biyihii liinta cabaysaa oo shan aan intu saayay insha Allah aniga hadda waan cabay markaa soo toosay xilligan waan soo toosay waana aan cabay salkii ku dhagay biyaha biyuhu ka soo haray salkuu fadhiistay waa kaasa marka waa kaasa halkaas isaga ku shubanaysaa meesha waxa ii yaala timiraan la fiika soo bixiyay timir ay taala wax sokor ma ku daraayo timirtaas sokor u ah marka waa kaasa kaas meesha shan xabo timir weeye anigu timirta markaan ku darsana waxaan isticmaalaa sida maaragta sunnadu tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam cuntadiisii ka mid tahay timirtu ila isdheer uu isticmaali jiray sida aan maqalnay marka insha Allah meesha shan xabo timir ay u jirta adiga saarto oo isticmaali jirta laakiin anu sida sunnada aan isticmaalaa haddaan xitaa cunayo aniga sidaas aan cunaa meesha waxa ii yaala waa moos waa u jeedin xabad moosaha ii taala xabadaas moosaan ku daraa wax sokor uma baahna haddaa mooskaas isticmaashid sokor ma u baahnid sokor haddaa mooskaas isticmaashid
wax sokorood u baahan tahay moos iyo timira isticmaashay qasqasay noqonaysaa cuntadan adigana dab ma saaraysid waa kuu hawl yari marka insha allah khaaliyaashayda la socda meesha waxaa igu jira caano koob caanaha qandacan yahay waxaan kala jeedaa yacni fridge aan kasoo bixiyey waa iska qandiciyey xoogaa inay cuntadu qandac yar kugu taha fiican qabowga badan macnaha cuntada xaggeeda uma fiicna marka waa soo qandiciyey caanahan marka qofkii aan faad rabin caanaha faad kale hadday u yaalaan wuu iska barxaa waxaa lii barxadaa ma bila caanaha hadday barax yihiin caanaha weydka aan lahayn oo haddaba maaragta meelahan dadka jooga ay soo iibsadaan oo aan maaragta faadka badan lahayn waa caano barxan subagina way ka saarteen laakiin adiga barax waa laga sheekay waxaa la yidhi caanaha barxadaa ma bila horeyaa loo sheegay qofka hadduu caanaha barxo caanaha haddii aad baraxdo macnaha ma lahan faadkii ay lahayn ma laha waa isdhimayaan marka anugu hadda caanahan waa caanihii faadka ii yaalay waan soo barxay biyaan ku daray waana qandacan yihiin marka waa ku shubaa insha allah la socdo aan ku shubayaa haddeer aan ku shubaa waa kana waa ku shubaa kaas waxaan arki waayay bahashan daboolkeedii marka haddaad daboolin waa kugu soo faniinayaan saxankaas yarkaa iska saaray haddii aadan daboolin waa kugu soo faniinayaan waa bilaabayna waa kuwaas si fiican inu kaaga shiidiyaa kaas waa noo shiidmay haddii oo qof kale meeshan qofkii ama gabdhaha ama dhalinyarada idan la cuni karaan ama odaga kaa rabtid waa taasaasay noqotay mushaariyay noqotay waa ujeediin soo ma jeedaan mushaariyay noqotay koobkaas mushaarida ah saakana biyaad cabtay koobkaas mushaarida ahna waad cabaysaa insha allah quraac kale maa u baahan tahay badda xilligan haddaa hadha u baahatid xabad rootiga wax marmarso sidaas horta subaxii quraacdaada haba iska ahaato qadadaa kuu soo hartay hadda iscaataynaysid qadadana oo casharkeeda waa idin sii doonaa insha allah marka waa idinkaasaa haddana quraac wanaagsan aa idin leeyahay commentiga iyo like-ga iyo maaragta warbixinta iyo dhiirigelinta intuba idinku xiran tahay waana inaa isii dhiirigelisaan si aan hore ugu sii socdo casharo badanna waa idiin hayaa insha allah waan idinla soo socodsiin doonaa hay-adaha daawasho wacan insha allah